taaba lahayn dee taa xamaroo kalunbuu noqon doonaa kaasi anigu waxba ka way xamar baad ku celcelinaysaa xamar tegi mayna baa tiri arrimaheedana waad la socotaa in khilaaf badan uu ka jiro ma waxaad u jeedaa waanu dhex gelaynaa xaaraan bay nagatay geli mayno waxaan aanuba gelayn dee isma haystaan iyagu iyo adduunkiiba is haysta annagu adduunku siduu isu qabsado loo heshiisiye ma naqaande maxaad uga jeedaa ninba nin buu kiraysay adduunka haysta maxaad uga jeedaa ninba nin buu kiraysay maxamedow 20 sanadood u dambeeyay saxaafadad ku jirto labadeenu way isku dhaweyn intaba wad garanaysaa shikaarka badaniga daa halka Cabdilaahi Yuusuf Ilaahay oo naxariistay wuxuu yiri habaar qabaan ahay oo Soomaali habaar qaba u baahan tahay madaxweynaha laga dhigay waaba ku tirinaya gabigooda ay dhigayso YouTube kaaga ka baaro ka madaxweynuhu ku helay Sheekh Shariif baa bedelay sidii loo eriyanayo loo lahaa waa maxaakiim iyo diyaarada loo fadhiistay Djibouti la geeyo 250 soo kaxayso madaxweynaha mid waliba ku bedelayo wax wada noocaas up to now waa sidii soddon cishu joogay farmaasho markii madaxweynaha laga dhigay waxani hadaanay dadka ka iman meesha digan waxba ka sugin mid walba mid baa wata xasan sheekh aniga hay maqlay imka beeniyo bariiskan caruurta Soomaaliland saacahan ka qaaday markaanu Kenya ku qaybinayni faarax macallin baa la socdo raashin baan Kenya geeyay annaguna laha aan sawiraydi la galo si Soomaaliland guurtideedii iyo wasiiradeedii Cabdirasaaq Khaliif weydii speaker weeyaan wasiirka ganacsiga waa maalinta raggiina laha credit baan doonayaa inaan silkiisa waree Guardian markaan wadanay New York Times madaxweynaha noqon doona UN ka watulaha waaba runtii uu noqday adeer mid walba dad baa la yimaadee wax ummadda meeshan joogta ka yimaada ma inaguna waxaynu ku badbaadnay 30,000 bay Sweden inoo keento boorama qaataan ale nala dhaaf maxamed xaaji maxamuud u tago warayso oo ragii sidee buu habeenka ay 30 ku Sheekh Ibraahim keenay waxa naga qaada 30,000 maxay oo dollar waynu diidnay in ay lacagtaasi ina soo gasho inamadii waxay yiraahdeen lacagta la celin ma sheekhu wuxuu yiri qaada maxamed xaajino maxamuud iyo raggan sooraa ka ufo lacagtii waa la qaaday bariis baa la soo siiyay Sheekh Ali Jawhar maqsinkiisa lagu xiray haddii habeenka laga hoydo lacagta doorashadii boorama lagu qabanaysta 9 kabay 30,000 bay keentay safaaradeedu inamadaasana wadi doorashada lagu qabtay never bali la soo gali mayso waxa la diiday markaa de sheekh iyo guurtidii shirka hogaaminaysa way waxa loo diiday 3 milyan inta laga dhigaaba habeenkii la oran lahaa guurtidii baa lacag loo keeno qarsatay dadka joogana ma gaadhayso hadii danahaaga laga laalusho aad lacag ka qaadato caawal kale 30,000 inamanay gaareen hadii min boqolooyis dadka siiya waana ku kala cawan lahayn qoladii shirka odayaashii guddi baa la saaray raashin baa la soo siiyay naga qaadano anaga 3 milyan baa laga dhigaayo dollar habeenka haddii qofku isagu isku tashan waayo oo uu neefkiisa iyo taladiisa iyo aqligiisa uu ku tashan waayo oo loo talinayo halka waxba ka suuq way marka waxa leedahay in Muqdisho Soomaaliya waa loo taliya adduunkii baa isku haysta Turkigii baa soo noolaaday harim cadbuulay balaayo leeyahay Mareykankii baa jooga nin waliba nin buu shaqeeyaa warloodadii sidaas ahay haddana gobolay warloodadii waa gobollo war dadka halka jooga dad baynu sicigna anagu talaan u dirayna ilaa ay sideeni yeelaan oo isku tashadaan oo reer nabi aadan halka naga fadhiistay imkama dawlad baa jirta farmaajo waa ninkii awrka dhaasay soo dhaami leeyay lixda awrku kaga lumay madaxweyne maaha Sheekh Shariif shalay buu ahaa ka kale xasan shalay buu ahaa mid buu bedelay war adduunka waxa weeyaan inay iyagu isku tashadaan maanta gaali iskaashka teenayaan xalana fadhido ciidan ay leeyihiin oo sida keenna maanta ay mushahar siiyaan ma jiro waa loo biilaya meel institution walba dawladooda siisay dawladdaasiisa African Unionka 28,000 muxuu qabtaa ma iyaga ciidan leh سنة والله العظيم ما قبلي وحي دليل لهلو تاني واتي الحبالة إنه ماشي لقوا موسيقى وصاره واردات كاني وحويان داد كراء بريبيد مسكح ذو دينو لقوا عياريا إننا كلا دوينا الشهوة ولا بدي قالين الحكومة تشري
gaalkeenu halkan iminka gurigaagu ka dhisay indian line-kaa la odhan jiray wixii dhakhtarka xaggaa ka xigana waxaa la odhan jiray gaaladaa deganay inagu xaggaasaynu deganay 6 magaaluu inaga degay 6daba galbeed buu ka degay dhaqan baan inaga burburay iyaga wuu dhex galay talyaanigii waxa weeyaan wiilkii iyo gabadhii wixiiba waa la wada talinaya culture buu u dilay horta de marka ilaahay ku kharibayo gaal xun buu kugu soo beega afrikaanku caqli badan ma lahayn talyaanigu waa wadanka adduunka ugu corruption badan 50 sanadood dambe search garee 50 ra'iisul wasaare la bedelay wararta nimankii bay isku heliyeen qaar waalay oo lacag sidana way heleen nin waliba hooyadii xabad ku dhufanaya adna hooyada baad xajka geynaysa wuu baaranaya waa leeta beesaabale meesha lacag baa laga urursadaa madaxnimo marb way xildhibaan aad baad ugu fogaatay dhaliishooda ra'iisul wasaaraha iyo imika waxay haystaan madaxweynaha khilaafna uu ka dhex jiraa ma waxaad leedahay khilaafka waxa sal u ah adduunyada ee iyagu isma haysta xaggaana uga ahayn waaba iska ashkateynayaan mid waliba beesha caalamka la iska ashkateynaya tanayna waxbaba u aqoon inagu war naga haysta lacagtiina oo naga taga imise doorashaynu iska bixin 20 milyan baa naga baxay maanta 60na dadkay ka baxeen magaal bay naga bixiyey waxa weeyaan qofku intaana way helayaan waxa weeyaan iyagu isku tashadaanoo war hadday hal $1 isugu xukumaan dadka meesha jooga adeer waxaan ay nimanka ka doonayaan way qabtaan adu goorma tagtay Kenya iyo Muqdisho Kenya 11kii baa ahayd markaan tagnay abaartu markay dhacday way Muqdisho goorma tagtay waxay ugu dambeysay markii 1990 intii ka horeysay ugu dambeysay way markaad mucaawinooyinka qaadeen halkaad marteen diyaarad baanu raacno halkaasaan Ethiopia marno